tegayey aeroboortka magaalada muqdisho laba nin oo saraakiila ayaa kuu timid laba nin ayaa kuu timid oo mas-uuliyiin ah oo kugu yiri nin al-shabaab ayaa ka baxaya aeroboortka u socda gaalkacyo labadaa nin yay ahaayeen mudane subjectiga meeshaan u imaanay wuxuu ahaa wax kale qalbi dhagax mashruuciisu waa wax kale amnigee lugta ku haysaa mudane I will never answer that question waayo ma ka jawaabayo ma rabo maxaad uga jawaabi weydoo qaranaysaa maadaama walaal soomaaliyeed aad iibsateen barqadii si faahfaahsan waqtiniyo adayna waqtiga iska dil ana waqtiga dil I will never talk about that waqti badan baan u hayaa markay dhacdo muwaadin Soomaaliyeed in la iibsado ama xaro loo dhiibo marka waqtigu iguma yara adigu inuu ku yareeyaa laga yaabaa labadii sargaal oo ku timid ay ahaayeen Abdullahi Sanbuloshe بدر عبد الله سنبل شو حاجة على هذا كبح إنه سؤال شك جوابتي فلا رجل جلش عندنا وما هرته يا كمسؤولها لبضع نية هاي حقاك عبد الله سنبل شيء أخذك أيو كبحي حق بقول لي هاي إنه سؤال شيء إذا كجوابني أنا قلنا حن حق لنا إن نويجينه قلب نجح ومواطن صوماليات أنت أنو نولنا هاي أنت أنو كأجاني نعدي أمرك بحسي إلا بضع نعدي هايين oo anagu aan ognahay ciday ahaayeen laakiin aan isaga fursad u siinayay marnaba ma joojinayno qofkii qalbi dhagax dhiibay ummadda Soomaaliyeed ayuu barqadii iibsaday kulligood haddii Sanbuloshe uu carar kala telefoonka uu dibin kara oo ka bixi kara laakiin su'aashu wali way taagan tahay ummadda Soomaaliyeed qalbigeeda ay ka gooxaysaa waxaan jeclahay barnaamij